احنا مدحيه هوغانka warfaafinta ee waqtigaas oo leh markaynu fiirino iminka dawlad ayaa ka jirta deegaanka Soomaalida Ethiopia marka telefishinada aynu daawano waxyaabo badan oo horumar oo la taaban karo ayay halka ka muuqda adigu siyaasi baa tahay maadaama aad siyaasi tahay sideed u aragtaa deegaanka dawladda maanta ka jirta ee uu madaxda ka yahay mudane Cabdi Maxamed Umar deegaanka hadda maamul baa ka jira maamulkani waa kii dhashay January 1993 sagaashan iyo saddexdii waa kii oo isa soo bedbedelay wuuna isa sii bedbedeli doona waa nidaamka dawliga sidaa ku dhisan nidaamka baarlamaankuna waa sidaas nidaamka markaa maanta jira waa ka ugu xoog badan intii soo maray maamuladii jiray waa nidaam waa maamulka hadda ugu shaqo badan awoodo fara badan oo maamuladii hore ayna lahayn oo kii koobaad uma lahayn oo kii labaad lahayn oo kii saddexaad lahayn oo kii afraad lahayn oo kii shanaad lahayn ayuu maamulkan maanta leeyahay maamulkan waxaad moodaa inay u dhammaystiran yihiin dhammaan astaamihii ay dawladnimo lahaan jirtay yacni ama sharci dejintiisu ha ahaato ama fulintiisu ha ahaato ama garsoorkiisu ha ahaato dhismaha hay'adaha dawladda min kor ilaa hoos iyo hoos ilaa kor ha ahaato waxaad arkaysaa maamulku inuu hoos u daadegay hoosna ka soo dhismay marka nidaamka maanta jira waa nidaam wax qabtay maamulka maanta jira wax badan buu qabtay waxbarashadu wax ka qabtay waayo waxaadan qaadan bakeray maalintii aanu xilka la wareegnay hal dugsi dhaxal goday ka furaa maanta waxaan ka hadlaynaa jaamacadda aad jigjiga 2500 oo arday bay sanadkii qaadataa maanta 17,000 oo arday baa dhigata waxaan ka hadlaynaa waa jaamacad sanadkan dadka la diiwaan geliyay aroortii waxbarasho u kalaha waa 980,000 oo arday waa 980,000 oo arday ayaa aroortii qalin intay qaadatay iyo buug kacda waxaan ka hadlaynaa maalintaana ma wiil misalaba maalinta hal qof oo shaqaale ah oo af Soomaali ah meel ugu maanaantiga maanta waxaan ka hadlaynaa maamul dawladeed oo 6 milyan oo dad maamula oo dhulka ugu ballaaran ee Ethiopia number 2 ga maamula shaqaale uu leeyahay waxaan ka hadlaynaa maamul marka la isku daro in ka badan 30,000 oo ciidan leh ama liibliis ahaado ama booliska caadiga ha ahaado ama ciidanka nabadgelyada ha ahaado marka la isku wada daro leh waxaan ka hadlaynaa maamul awooday oo karay 100 sano Soomaalida baa la lahaa hubka keena hubku baa laga ururinay maanta waxaan gaarnay maamul hubka xafiisyada dawladda dhexe Ethiopia intuu ka soo guro Soomaalida u qaybiya oo liyu booliska qoriga hoo waa kii laga qaaday oo booliska u dhiiba waa kii laga qaaday oo kanabad sugidda u dhiiba waa kii laga qaaday marka waxyaalaha ajiibka ah in aad dadku u gartaan kamida waxa kamida 100 sano qori un baa laga qaaday maamulkani maanta wuxuu ku guuleystay inuu qorigii soo qaado oo shacab soo sharciisa oo maanta sameeyo ciidan nidaam kala dambeyn ka jirta wax la dafiri kara ma يعني نين أما شعلو أما نبعو لكن وحي شرا وين بشرتا نظام كمان ذيك شرا وامد شقينيا ما ملكو وشرا خلادات حسمايو ويشرا خلادات يسمايا وحيالات كل بسنة يا ويشرا أما دي بدها لقى شيء أما جودها لقى شرو لكن واحد لدى فكري هيرك أقونته كجاري عاصمات كجاري نبت قلينا كجاري الربح بالشدة كجاري ودوين كجاري تليفون كجاري infrastructure ka gaaray iyo abuuritaanka oo ugu sii xoog badan qofkii deegaanka ku noolaa inuu moraalkiisa qof inuu yahay u sheegay uu yiri waxa tahay qof xor baa tahay waxbaad baran kartaa waxbaad qabsan kartaa dalkan iyo dadkan adiga